maamulka Puntland ayaa magaalada Buuhood la joogta oo ku sugan haday tahay hay'ado haday tahay ruga caafimaad waxaan u maleynayaa maamulka Puntland inuu ka dhigan yahay markuu leeyahay Buuhood la joogaan ruushkii Ukraine yimid hadduu maanta uu soo qaado Puntland yiraahdo Buuhood ay ka talisaa war airport-da laga dhisay war golihii deegaanka shaqeynaya war cashuur baa laga ururinaya okay inaga soo gabagabinayna waqtigu ugu yar yahay khaatumo maxay hadda ay leedahay waa saxaya markii hore khaldamay wali ma saddexdii madaxweynaad ku celinaysaan oo dib ugu celinaysaan mise hal magac madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaad markan shirka aad ku dooran doontaan walaalo waxa weeye maamulka khaatumo hadda waad ogtahay magaalada Taleex waa ciriyoomaysa oo shacbigii khaatumo dal iyo dibadba waa isaga yimi oo maanta waa lagu sii socdaa oo shirki insha Allah bidmilaahi waxaan rajaynaynaa inuu dhacayo dhici doono ma waa dhacaya hadii Allah Ilaahay raali ka noqdo waxaan maanta idin shacbiga khaatumo u bayaaminaya maamulkan inuu noqon doono maamul la mid ah kan Puntland ka Somaliland dawladda federaalkana waxaan ku codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu maamulka khaatumo oo dhibaato badan lagu hayo su'aasha ugu dambeeyaan ku weydiinaya waxay tahay khaatumo hadiye jeer waxa lagu sheegaa dad aan ka shaqeyn gudaha ee hadiye jeer meel kale haday ahaan lahayd Kenya haday ahaan lahayd Mareykan Dubai meel kale iska aadaada laakiin wadanka dhexdiisa aan waxba ka qaban haba yaraatee wax ma isbedelayaan siyaasadoodii waxaad ogtahay wadanka dhexdiisa hadda waxa ku sugan madaxweynihii saddexdii madaxweyne ka soo haray waa la sirreebay indhasheel maanta wuxuu taagan yahay finaalkii buu taagan yahay oo maanta Taleex buu ku sugan yahay inta badan 90% wuxuu ku sugnaa gudaha wadanka waxa jira niman aqoon yahanina oo la baxay oo ah gudiga fulinta la yiraahdo koob iyo 10 nimanka aqoon yahanintana wax allaala waxay khaatimo uga baahan yihiin ma jirto waxay hadiya habeenba u taagan yihiin sidii ummadda khaatimo la isu keen lahaa iyagoo dhaqaalahoodii waqtigoodii naftoodii maalkoodii u dayacay oo u lumiyay sidii shacbiga khaatimo horumar u gaari lahaa waxaan hambaryo u soo jeedinayaa gudiga G11 ee ay ka mid yihiin Cali Khaliif Garayd Professor Cali Ciise Cabdi Cali Xaaji Cige Cabdirashiid Macallin Salaam Cabdi Madoobe Nuur Gaas ay ka mid yihiin oo isla markaan ummadda khaatimo ay maanta higsanayaan waxyaalaha ay soo qabteen waana ku amaamayeen waana waajib ay loogu waana ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda khaatimo u sheegaynaan rag nin Allah ninkii ka sheegay golaha filinta iyo gudiga golaha dhaqanka ee khaatimo in ay maanta looga baahan yahay inay talax ma laga yaabaa wada hadal inuu dhexmara idinkiyo Puntland maya waqti xaadirkan inta maamulka khaatumo shirkooda qabsanayaan oo ay maamulkooda dhisanayaan oo ay u diyaar garoobayaan siday ula jaan qaadi lahayn ummadda Soomaaliyeed wax wada hadal anigu kale fikirka aan qabo shirka yagi baba hadda fooda nagu soo haya shirka ilaa uu qabsoomana cid wada hadal la gali kara ma jiro ismada khaatimona waxaan ka codsanayaa hadii daqiiqad la saamici karo ismada khaatimona waxaan ka codsanayaa inay tagaan magaalada Taleex inay ummadii hogaamiyaan in ay balanta ay ka soo baxeen balanta ay qaadeen shacbigu badan u qaadeen ay ka dhabeeyaan maxaan ka rajaynaynaa in magaalada Taleex maanta asbuucan gudihiisa ay noqon doonto meel kamida baqcada Soomaaliyeed ee laga taageersan yahay dawladda Soomaaliyeed ee lagu diidan yahay ummadda Soomaaliyeed ay kala go'do yani Ilaahay ka rajaynaya shacbiga khaatimo gabdhaha khaatimo dal iyo dibadba waxaan u rajaynayaa guul ummadda khaatimo meel kasta ay joogto waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo okay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waqtiga qaaliga noo soo hurtay waa Rashiid oo isagu ah afayeenka khaatimo ee Dubai Somalisad waa Yaasiin Saalax Ducaale oo mar kale idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baad mahadsantahay